وأرد وحلا قوي وح أنا مقلنا إيران حتى أنا نول والله واحد إني مني لا قبل اشترفت هذا وعدنتي مستقبلك هذا وبابا والله habeenkii koowaad aan arko wallahi waan xagada lagu isticmaalay aad u naxay waxaan maleynayaa anigu waa la noocaad u sabranayo ilaahay waddankaan ku noolaa karnaa hataa wallah beentay ma ayaa ku guursanaya wax guursanaya male qolkaali oo aaba igaliye dhaxda ku soo xirtay dharka dhan oo iska dhigay anna baatiga oo ugu jeexay baatka sabstrash laga dhigtay idda ka dhigatay garinka uu iga siibay xijaabkana iga siibay waa dhibanayaal waa hooyo iyo gabadheeda waxay u baahan yihiin cadaalad laakiin sheekadooda waxa laga yaabaa inaad la yaabtid oo aad qaadan weysid damiirkaadan uu ku diido waxa ay ka sheekeynayaan cidda ay cadaalada ugu baahan yihiin iyo ciddii cadaalada u raadin lahayd oo iyaga qudhooda ay dhibaato kala kulmeen waxa laga yaabaa mararka qaar inaad maqashid hooyo gabadhii ay dhashay adeerkeed uu ka xadgudbay haddii aad si kale kugu dhaho hooyada ninkeedii oo xadgudub ku sameeyay gabar hooyada kaliya ay dhashay mararka qaar sheekooyinka noocaas oo kale qaaradda Yurub gudaha dalka way ka dhacaan laakiin tan way ka duwan tahay waa sheeko shakhsiyan aan weligii maqlin qaadashadeeda adiguna waxay kugu qaadan doontaa waqti badan laakiin cadeymo badan dhibka qoyska ay tabanayaan ayaan kula wadaagi doonaa gabadhan waa dhalinyaro waliba da'da 16 sano ku jiro 4 sano kamid ah kufsi jirdil daraagis la siiyo marna hotel la geysto ayay ku jirtay kulli qofka qof kale maaha waa aabahay saas oo ii galay mustaqbal xumo igu gabarnideedana uu i dhaafiyay yaa u geysanaya marka ma ahan adeer iyo walaal qofka dhibkan ay ka tabanayso xadgudubkana ku sameeyay waa aabihii iyada dhalay sidee u aamini kartaa sheekadaas marka way kugu adagtahay dabcan aabe gabadhiisa oo 12 jira kufsi ku bilaabay ilaa 16 sano ay gaarto jirkeeda hal meel u dhaafi ma jirto sida gabadhu ay nooga sheekeen doonto waxaan weydiin doonaa marka qoyskan sheekadooda ugu qaatay waqti badan inay idin soo fadhiisto oo aan tabiyo waxa uu la baxay magaca Farxiyo waad fahmi kartaa magaceeda ma ahan laakiin aniga doortay si aan sharafteeda u ilaaliyo taasna waad ila qaadan doontaa Farxiyo waxa weydiin doonaa markii ugu horeysay ee ogaatay aabaheed inuu u galmoonayo xilliga ahayd da'deeda waxa ay darantay sida ay noqotay falcelintii ay sameysay iyada ayaa inta badan noo sheekeen doonto waa dhageysan doonaa anaga oo dhan si lamid ah hooyadeed oo ilinta qubanayso ayaa inoo sheekeen doonto mar kale waa dhageysan doonaa waxaa jiro codad qarsoodi ah marka aabaheed oo xilli habeena 10 habeennimo doonaya inuu kufsado mar kale cod ayay ka duubtay kaasoo u noqon doono xitaa kiiskeeda wax weyn ka qaban doono maadaama qofka aan ka hadlayno qofkii yaqaan iyo codkiisa iyo sawirkiisaba dadku ay isku aqoonsan doonaan aabaha oo baryaaya oo dhahay gabadheeda caawa u dambayso iyadoo dhahaysa balan miya caawa kadib inaan jirkeeda ku xadgudbeenin hadda waa mar ay doonayso inay nafsadeeda ku badbaadiso hadda ninkan waa askari ka tirsan ciidamada dawladda waxyaabaha cajiibka ee sheekada marab inaan gudaha u sii galo anigu ka hadlo iyaga ayaan u fasixi doonaa anagana waa dhageysan doonaa labada guddiman sideed ugu bilowday hooyo habeenkii koowaad aan arko wallahi waan xagada lagu isticmaalay aad u naxay waxaan maleynayaa anigu waa la noocaad u sabranayo waxaan dhahay muddo joog adi camal muddo jooga ka fiirso waxaan muddo joogay dhowr habeen markaan arkay waa adkeysan waayay waa soo baxsaday subax kamid maalin maalmaha kamid ah soo baxay guriga ayeeya imaado hooyada ay imaaday subaxdii waa li soo kixiyay waxa la ii keenay hawrtay gabadha dhashay alikan gurigooda liikan habeenka xagga sicda dagaal la soo qaaday aftigiisa celiyay subaxdii xigta askar uu soo batay baabe walaalkii ay horgeeyay dib iyo balay la marwal dhahay waa la xaliyay walaalkii ay horgeeyay okay markii la horgeeyay ka bacdi subax 2 saac aheeday
dilku igu bilaabay ilaa 6 saac uu dilay bini aadam intii la dilay ka badan uu dilay iska dulqaatay waa adduun waxaa jirtay cod oo aad ka duubtay aabaha sida ay sheegtayne markaas isagu uu doonay inuu ku galmoodo habeenna ay ahayd habeenkaas jawiga sidoo ahaa sideen ku bilaabatay sheekada markaas inuu ku damca hadana kula dhistama waxa هذا هو الجران إذا شرب القاحة الحمد لله لا تجيبه كل الدوا وحارة تقول سما صارت إيد القفي هالدواء حقيقي مرب النوع آخر حقيقي ليلة مرب هاي تو والله ما تبصم عنده وأنا والله مصطلح بقى أقطع إذا سمر مرب مكسينة جتاي لي إيش عادي والله بالله مكسينة وأهوان والله يعني حاول وهديك وجود البيجان وهديك وجوري والله إيش لا إيش لو بقى في الدنيا إيش واحد في سوى المحكمة معه أنا أريد واحد في سوى وهو كل سنة أنا أكيد إستاجن إيه قدر ما تيا وقال لي كان تبي هاي قاعدين ما في دعوة جعل كان نار الله تجيب آمين واحد الولي كذا على هو فوق يفرق واقف بريا انت عايزك تراعي لا يا الله اللهم صل على سيدنا محمد ما يصير يمكن تقبح الصاد يبع والله ويقده والله انا تقبح كل لا لي مرة جرجا إيش إنه واجوها يا أنا نزلنا اسمع كلام كل مشامرة يا أوجه يدعنا وشيء دعها نغسل وهم شيء ما أوجي وبحر من السلالة والله لا تلا ميت كذا سقاط والله بالله تلا طبعا حتى أهل كذا والله بالله تلا تاسعيدا سفلا بحر فرحنا سومالي جديد مال أنا كهيرة من الطريق أبغى سفلا ده دين الإسلام كالله إجتنا ما هذا كله ويلا هذي مال فوق بين حتى والله شوف كذا نسيت والله هذا ما نحتاج وانا قلتين هذا بالقطع maalin ay guriga ka maqan dhaxay ku dhacay wuxuu dhahay naasisi waan ka diiday aqligaaga ma jooga maxaa ka qaldan ugu socodin waa ka diiday to i xambaar qolka xoog igu soo xirto gacmaha iga xiro xoog iga qaatay ana waa ooyay waxay maada eedo walaasheeda maada eedo markay maada dhan waxa dhan u sheegay laakiin walaasheed may ogeyn gabadhaas waa ka qariyay lama wadaagin eedo wax kasta u sheegay marka dambe eedo wax kasta oo sheegay marka dambe waxay dhahday aan xataa kuma weydiin way iga masiiri jirtay naftarkeeda xidid gabadha maxaa ku haysataa maxaa ku aragto xalbee dhehaysaa ayada ma qaan soo fikrayso kulli inay iga masiirayso arkin fahamtay anna shiiban ka dhahay waxba maan dhihin si u socoto xub laa inuu daawo isiiyo xunday ma bad dhafrayso yiri anna waxaan dhahay masiixanay haba anba masiixanaan dhafraalay jirtaa marka dambe daawooyina la soo gaday kaniiniyaal wuxuu ugu bilaabay inuu cabitaanadii ugu daro kaniin qaraar u ahaa alxamdulillaah waan gartay kaniini oo dhadhan lahu ahaa waan badiiday macaawaya dheh wax kastoo ii keena maanan cabin sharooba eeda soo gaday sharoobadii iska cabaayay iska seexanayay sharoobada carruurta xataa way cabaayeen carruurta mudayro koobanay seexanay ilaa iyo 3 saac camal miyay seexanayeen laakiin aniga saacada qabsanayo saacadna saacadeed kale iska soo kici jiray muddo 6 saac camal waa jiifi jiray maxaa qaldan anoo xanuun ahaayo maxaa dhiigga keen dhiiga caadi ku ma joogo maxaa dharka kale isdhaa soo kici jiray waan nahay waaya maxaa saaran ku gale marka dambe sharoobooyinka cabaay maalan xarka soo kaniini ugu daraayo sharoobo dhan waa diiday inta dhalaa guriga tiilan waaba jibshay waa la igu dilay xataa si diidi kartaa macnaha haddana habeen kale wuxuu dumcay inuu caano isiiyo caanihi saanta u dhadhamina oo na ihayo wallah caano qabow ahaa waa qabsada hal mar laqay qaraar kaniin qaraar oo igu soo dar maxaa ku soo dartaa dheh igu dhaartay wallahi waxba kuma soo dar ilaahay ka baqaada ma ku dartay ayuu inta dhalan iga qaado aamiin ha dhadhami caanaha neet uu dhadhamiyay qaraarkiisu uu arkay ana waxaan dhambe bacabaay anoo daaduna iga qabta haaf waa ka daadi haaf kana siga cabay marka dambe saas idoo ku socoto adeerkay la wadaagay dad waa ogeed walaasheed labaadna waa ogeed oo hadda u imaad gabadh dhimaan gabar kale waa ogeed waxba kama qaban qariya dhaheen
walaashiisa Sacuudi ka yimaada xataa iyo gabar kale oo dan la dhalato u sheegay waxba kama yaqaan waxay ugu dhaheen qari waa ceeb cidnaha la wadaagan xitaa hooyada la wadaagan ha marka imaada ka bacdan kula wadaagay adiga alxamdulillah maalin maalmaha kamid wuxuu igu weeday wuxuu igu yiri carruurta qada kuugu soo dhiibaa wuxuu egeeyay tarjiinka hotel yar oo ku yaalo xaafadaha dhexdeeda maqaayadna u eg wallahi ma ogaan wax degnaayo wax kale tarjiinka neescidna noo degnaa anoo ogaa xasla meesha ma maqaayada ma ogaan ani waxaan soo dhan ilaahay amarkii dar alla maan ugu iska socdalay waa aabaha uu socday bis waxaasna kama filaneen wallahi muddo 40 daqiiqo camal oo ku maqnaa hotelka ku maqnaa bacdi uu isoo labtay wiir soo bax ku garaacay qolo geeyay axdooba ka soo xirta naagta ko inta qolka galnaagta albaabka fadhiyo igu tiri soo fududay qolka albaabkiisa fadhiyo igu tiri soo fududay markii bacdi qolka galna way ugu soo xirtay dharkoo dhigtay waxa sameeyay kala garan way adduunka dhan ugu soo yaraada baatigo kor iga jeexay baatiga saddex istiraasha ay ka dhigatay be garan yaraa wato iga siibay xijaabkii uu iga siibay فولك انت حتى ويقد قاعد وإيرا ست الحمد لله الكيس ويقلي ديك بدنا يا جماعة وحا اسكو دقالو ايقد ترتري ميقد واكاد ترتري ميقد ترتريس اسكو هيسن درباح شو ايقلي وايقد ترتري لي ايقي الحمد لله الله اسكا ديك بحاي ما ندر الله اسكا جوك سيد وحان كجوجي حتى ما ننهيسن مركا الحمد لله وحان كسو بحسن تفديستا على اللهم صل على سيدنا محمد إلهك بقالي أمان قلي markaas oo hinoo jabsaday diintiigu soo riday tasoo fiiray macna markii hore diinku maadan jirin miyaan dhahay waya hada diintiigu soo riday maxay ahayd anoo soo iyaaban alxamdulillah saasa uga soo baxsaday dhawaatii mugusan laakiin dharkoo ka dhigay asna dharkoo hurteeda ku dhigtay intaasaan ka baqay ka xishooday walwal igu soo riday inta isticmaali karna wuu isticmaalay الله يعافيك أبايا كان حرام عليك برجع ميتو فيديا والله marka dhibaato weyn aan gaadhay gabadhayda waxa loo geystay jirdir xoog leh waxa u geysanayna aabaheed waaye muddo oo waxay socotay 12 sano lagu bilaabay dhahday ilaa hadda 16 sano jirto 4 sano hawshan soo socotay ilaa heer adkaysan weysay gaartay ee bistoolo qaadato ay la dagaalantay la shariigtay gaartay wuxuu gaaray in hotel geysto in guriga eedada haday ka tagto oo meeshaas oo ku gadgaado gaaray hool soo jireen oo muddo soo socotay ahayd cidna aysan la wadaagin markii dambe adkaysan weysay waxa la wadaagtay adeerayaal ee dhahday aabbo iyo galmooday adeer iyo eedayaal eeda la qabo iyo laba eedo la dhalatay adeer intaba waxba falcelina kama sameeynan iska aamusan waxay dhaheen hooyada la wadaagan arrinkan aniga anoo tii beensanayo codadkii markaan dhageystaan wax walba ii rumaadeen ina dhamaadeen oon ogaaday wax walba xaqiiqsadan codkiisii oon aqaanada gabadhayda aabaheed codkiisii oon aqaan markaan dhageystaan wax walba xaqiiqsaday wuxuu u sameeyay iyo falcelintii arrinka hadalka uu sameeyayo waan dhibaatooyinkii iyo wuxuu u geystay wuxuu uga baahan yahay isagoo dhahayaan haya cadeyman aan ku galmoodo isagoo handadayaan haya oo leeyahay waa idin dilaya adii hooyada waa idin tooganaya hadda arrinkan aad bixiso ama oo meel gaaro ehelkiina halahalaan u leeyahay diinta Allah iga saaro hanjabaad badan dhowr jeer ayaan damcay xitaa in aan hooyo la wadaago nasiib darwaay ahaan weeday qoys hooyo dalka maysan joogin oo inta badan ma joogin dalka ma joogin ba Sacuudi dalka Sacuudiga ku maqneed hooyana dhiikare qabta waxaan isla daa uu la wadaagto wallahi dhowr mar waan kala walabeeyay markii hore xataa lambarkeeda markaan helayna ma u sheegtaa miskadiisa waan kala walabeeyay markay imaadayna waaba iska dhaafabo intay maqneed qoys dhiikare qabta waxaan dhahay ama maskaxda dhiig ugu furmaa meel xun ee kaaga dhimataa hooyo markay imaado xataa lama wadaagin oo baan kala walabeynayay walaashay iga weynaa u sheegay arinta iyadana way farfooday iyada hooyo arinta u sheegtay hooyo way imaad way u weydiis wax walba u sheegay xitaa way aaminaysaa aabahaaga ku dhalay ugu tiri waxaan dhahay hooyo haa way ugu dhacday codkiisa garanaysaa xataa
kulley meeshaasay wax kastuu ku ogaatay. waxaan tagnay isbitaallo ka mid ah isbitaallada ku yaalla Muqdisho si lagu caddeeyo dhibaatada gabadheeda gaadhay waayo aniga waa awoodi waayay inaan fiiriyo gabadheeda qalbiga wuu isiin waayay warqadihina waan kuwaana waan wataa caddeynaya waa kuwaasaa marka waxaan rabaa in aad waxay qabataan dowladda federaalka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha baarlamaanka golaha baarlamaanka falkaas ka falcelisaan oo ninkaas oo geystay oo dambigiisa ku qaadaan oo xaqeena loo dhiciyo hadduu sharci jiro haddii islaamnimo jirto annaga dad waxaan nahay iska danyara dad ninkaas noo hanjabaya isaga reerkiisii haddaan u geyno xataa uu loo sheegay xataa isa waxba falcelin ay ka sameeyeen arrinta naga aamusa ayna dhaheen waxaan looga qaado xaqeena waajib alaal waajigo marsi oo sharciga oo marsiyo annaga aan diyaar u nahay sharcigaas aan ku go'naa wuxuu marsiyo ta kale ummadda Soomaaliyeed shacabka meel walba oo jooga waxa ka codsanaynaa inay caawiyaan guryaheena hataa baqdinaan ka nahay banaankaas aan joognaa ummadda Soomaaliyeed oo kale taa caawinaysa banaankaas ugu weyn gurigeena 3 habeen kuma ma seexanin hadaladii ugu hanjabaya waa haya hooyada waa toogana adiga waa ku dilaa ehelkaagan xabad u toogana oo leeyahay anna saraaxa waa ka baqday banaankaas aan ay gabadheed isla jeefna habeenba gurigaan seexnaa ummadda Soomaaliyeed waxa ka codsanayaa inay ay kacaan haddii muslimnimo jirto haddii walaalnimo jirto ay soo caawiyaan waxa مسكر معه hooyo loo gafaanahay hankeedii la dhaawacay hamigeedii oo dhinto hagardaamo gaadho hawaysan karin asaageed nasiibku ka heshay baan ahay hadii maanan ilaaweyn hindaaqiya dhibaataan had iyo jeer ku seexdaa habaar qaba inuu yahay iimaankiisu haaf yahay haldhaashay oo dhalay hilibkiisa ka soo go'day sidoo ku hawaysan karaa hubaal waan ilmeynayaa hungiyo ciil baan qabaa halisna waxaan ugu jiraa inuu igu soo hajuumo hoygii aan ku noolaa walina wuu ii hanjabayaa haddaan baafiyo arrinkan inuu halhal noo dilaayo marnaba nooga haraynin ayaan ka hayaa afkiisa halkeen ku ammaan helaa haddeer ku badbaadayaa haddaad garab isiisaan hawshaan igu dhiirisaan cadowga iiga heelisaan hankayga waan gaarayaa hubaal waan ku foosayaa xaqaygana waan helayaa guushana waan haleelayaa horyaalka dumar baan ahaan Soomaaliyeed intaan la hadlin ciidamada dawladda waxaan codsan lahaa qoyskan iyo waliba gabadhan yar iyo hooyadeed oo hadda qayb ka mid ah xaafadaha Muqdisho nafsadooda maalinba ama habeenba meel ku dhuumanaya inaad badbaadisaan qof walba oo wax u qaban karo hooyadaas iyo gabadhan yar lambarkooda ayaa halkan ku soo qoraa waxaan codsanaa in wax loo qabto tan waati hay'adaha arrimaha bini'aadanimada ka shaqeeyo dadka Ilaahay wax siiyay iyo qof walba oo wax u qaban karo tan labaad ciidanka Soomaaliya booliiska sirdoonka haddii dalku ay cadaalad ka jirto waxaan codsan lahaa hooyadan iyo gabadheeda oo labadaba hilib bisil ah in wax loo qabto Muqdisho walagu qiyaaso inay ku nool yihiin in ku dhow 4 milyan oo dada in dulmigaan uu ka jiro hooyadan iyo gabadheedana habeenba meel ay seexdaan waxay ceeb ku tahay oo sharaf dil ay ku tahay oo karaamo xumo ku tahay 4 milyan dadka ku dhow ee ku nool Muqdisho war hadee dadnimo jirto booliiska iyo sirdoonka cod dheer iyo cod gaaban waxaan ugu codsan lahaa hooyadaas iyo gabadheeda in laga badbaadiyo qofkii iyagu markaa dadka kale ka badbaadin lahaa dhibaatada uu ku haayo haddana wuxuu ugu handadaa inuu nafsadooda muutin doono haddii ay sheegaan dabcan meel ay u laabtaan ma laha muuqaalkan waa kana fadlan waxaan ka codsanaa marka muuqaalkan inaad qabatid la wadaagtid saaxiibadaada kale si qoyskan ay u helaan cadaalad mahadsanideen